الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. ولي waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeenii ahaa maqaasid الصوم الفصل الثالث cutubka saddexaad ayaynu caawa qaadanaa insha allahu tacaala. wuxuu ku saabsan yahay fi aadaabi ay aadaabi الصiyaam, aadaabta soonka. wahiya sittatun waa lix. wuxuu yihi sheekhu axaduhaa koowaad waxa weeye xifdu lisaan, in carabka la ilaaliyo, waljawaarix iyo xubnayaasha jirhka laga ilaaliyo can ilmukhaalafati dunuubta iyo khilaafka ilaahay la khilaafaya amarkiisa subxaana wa tacaala. liqowlihi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yihi man lam yadac qowla zuur, qofka aan ka tegin hadalka xun, waalcamali bih, iyo inuu ku dhaqmo hadal xun oo dembiya, falaysa lilaahi xaajatun, ilaahay baahi uma qabo fii an yadaca dacaamahu wa sharaabah, qofku inuu cunto iyo cabitaan inuu ka soomo. ujeedadu taa maaha, ilaahayna subxaana wa tacaala taa maaha ujeedada u jideeya soonka. ujeedada ugu muhiimsan waxa weeye in dunuubta iyo macaasida laga fogaado oo nafta la tarbiyadeeyo. wa qaala calayhi salaatu wasalaam, rasuulku wuxuu yihi ruba qaa'imin, waxa badan dad badan oo salaatuleyl u taagan, fara badana xaduhu min qiyaamihi sahr, wuxuu ka dheefo iyo wuxuu ka faa'iidaa waxay tahay inuu waa soo jeed iyo dhafar. wa ruba saa'imin xaduhu min siyaamihi aljuucu waalcatash, waa fara badanaa buu yihi rasuulku qof sooman oo laakiin wuxuu ka faa'iiday uu ka dheef ay tahay soonkiisa gaajo iyo haraad, macnaha xumaantii kale, dhaqankii xumaa, caydii, aflagaadadii, macaasidii, dunuubtii, intii kamuu soomin, cunto iyo cabitaan buu ka soomay. athaani, aadaabta labaad waxay tahay idaa duciya ilaa طacaamin wahuwa saa'im falyaqul inii saa'im. qofku markuu soomeeya haddii lagu casuumo cunto oo cunto lagugu baaqo, waxaad tidhahdaa waan soomanahay. liqowlihi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yihi idaa duciya axadukum, haddii midkiin loogu baaqo lagu casuumo ilaa طacaamin cunto wahuwa saa'im, isagoo sooman, falyaqul ha yidhaha inii saa'im, waan soomanay. yudakiru dalika ictidaaran, sheekhu wuxuu yihi isagoo xadiiska sii sharxaya, taas wuxuu u xasuusinayaa, yadkuru dalik, wuxuu u sheegayaa, u leeyahy waan soomane, ictidaaran ila daaci, qofkan cuntada ugu baaqaya casuumay si uga cudur daarto, lianlaa yankasira qalbuh, si aanu qofka qalbigiisu u dhaawacmin, oonu dhaawac usoo gaarin, inuu qalbigiisu u jabin. bal u fiirsada hadalkaas. tusaale ahaan qofkan cuntada kuugu baaqay ila qof muslima ma noqon karee, waa qof gaalo saaxiibtiin tusaale ama ajaartiin oo gaala ayaa cunto kugu casuumay, mana ogeyna soomantay. haddaanaad u sheegin cudurdaarka aada u diida casuumadiisa, de qofku qalbiga waxbuu kuugu qaban karaa, qalbiga dhaawacmaya ama qalbigiisa jabaya. markaasi aanay taasi u dhicin buu leeyahy sheekhu, qofku waa inuu u sheego siduu rasuulku leeyahy, inaad soomantay oo tidhaahdo waan ka cudur daaranaya, casuumadaadii fidisay, waan soomanay. fa in khaafa riyaa, qofku hadduu isdhaa ustusnimo iyo waxbaa ku soo gelaya oo markaad leeda waan soomanay, waraa bicudurin aakhar, wuxuu sheegan karaa cudurdaar kale ayaa sheegan karta. haddaad is leedahay shirkigii yaraabaad ku dhacaysaa ustusnimada, cudurdaar kala raaso oo qofkaa qalbigiisa ilaali, xitaa hadduu gaaliyo qofkan casuumada kuu fidiyo. athaalis, aadaabta saddexaad waxay tahay maa yaquuluhu idaa fatira, idaa aftara cafwan, markuu qofku afro muxuu ku ducaysanaya. wahuwa maa ruwiya canhu calayhi asalaam, rasuulka waxaa laga soo wariyay annahu kaana yaquul, wuxuu intii rasuulku idaa aftara markuu afro, dahaba dama-u, haraadkii ilaah waa naga kaxeeyey, wabtalat ilcuruuqu, xididadii way qoyeen oo macnaha jirhkii oomanaa wuu qoyey, wa habata alajar, ajarkuna wuu sugnaan doona insha allah ilaahay hadduu idmo. wa ruwiya aydan annahu kaana yaquul calayhi asalaam, rasuulku wuxuu odhan jiray allahuma laka sumt, adaan ilaahu ku